nabadgelyo korkiina ha ahaato waxaan ku wada nool nahay duni kala fog qoloba cayn xiran tahay sidaas oo ay tahayna dabaqada sare waxay inta badan iska soocaan dabaqadaha kale la jaanka ah iyagoo xiranaya brandiyo aad u qaali ah kana dhex muuqda kuwa kale muuqaalkeena caawi waxaan idinla wadaagayaa 10ka brandi ee ugu qaalisan dunida tan aan ku nool nahay. Coach waa brandi aad u qaali ah waxaana lagu aasaasay magaalada New York sanadii 1914 wuxuuna brandiga kan caan ku yahay boorsooyinka nooca gacanta lagu qaato. Wuxuu brandiga kanu ka bilowday Manhattan Leather Bags, Lillian iyo Miles kuwaas oo ah aasaasaha shirkadda tan. Miles oo ah aasaasaha shirkadda tan waxa aad u soo jiidatay naqshada baseball glove-ka aad u qurux badnaa taasna waxay ku dhalisay inuu sameeyo boorso gacmeed naqshadeeda oo kale ah. Waxa uu ku bilaabay inuu soo bandhigo 12 xabo oo kaliya isagoo si aad u taxaddar leh u naqshadeeyay. 1973 Coach waxa uu isku dayay inuu brandiga kan ka dhigo mid la wada iibsan karo inkastoo aysan boorsooyinkiisu raqiis ahayn haddana waxa lagu heli karaa qiimo gaaraya $300 taas oo ka yar shirkadaha la jaanka ah ee qiimaha agabkooda kor u qaada. Coach waxay hadda ka mid tahay brandiyada adduunka ugu qaalisan waxayna ku leedahay in ka badan 950 xarumood daafaha dunida. Qiimaha shirkadda tan wuxuu dhan yahay ilaa $3.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Xarunta ugu weyn ee shirkadda tan waxay ku taalaa Manhattan waliba isla goobtii ay shirkaddan ku aasaaseen. qisada Fendi waxay ka bilaabanaysaa Piazza ee magaalada Roma 1925 waxa ku yaalay goob yar oo lagu sameeyo dharka leatherka ama maqaarka laga sameeyo waxaana wadaagay Eduardo iyo xaaskiisa waxayna ka bilaabeen inay sameeyaan jaakadaha nooca dhogorta xayawaanka laga sameeyo. qarnigii 20aad kala barkiisii waxay ahayd riyada haweeney kastaba inay xirato mara nooca kana inkastoo bilowgii 60meeyadii iyo isbedelkii bulsheed waxay noqotay mid laga baxay. haddaba 1965 ayaa Fendi waxay heshiis la naqshadaystihii caanka ahaa Karl Lagerfeld. talaabooyinkiisina waxaa ka mid ahaa inuu soo kordhiyay boorso gacmeedyada caanka ah kuwaasoo lagu gado $3,000 ilaa $5,000 qiimaha shirkaddana kor ugu qaaday $3.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. sidaas oo tahayna shirkaddu waxay ka mid tahay shirkadaha ugu dakhliga badan xagga dharka iyo brandiyada qaaliga ah iyadoo dakhli sanadeedkeedu dhan yahay ilaa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxayna ku gaareen in ay soo bandhigaan fashion aan caadi ahayn. Burberry 1885 ayay ahayd markuu Thomas Burberry ku aasaasay Burberry isaga oo jira 21 sano oo kaliya. naqshada la xiriirta in ay dharka reer Britain ka ilaaliyaan cimilada aadka u qabow. dagaalkii koowaad ee adduunka jaakadaha Burberry uu sameyn jiray waxa inta badan xiran jiray generaalada ciidamada Ingiriiska waxaana heshiis joogto ah la galay in muddo ah taas oo ka dhigtay brandigiisa mid aad loo jeclaysto. waxa uu soo kordhiyay jaakad leh suun bilaa batan ah taas oo dhexda lagu dhuuqsado. brandigiisu haddaba marba kaga dambaysa kor ayuu u sii socday isagoo soo kordhinaya fikrado cusub. waxa uu soo kordhiyay fabric cusub oo Gabardine la dhaho kaas oo xataa biyaha celinaya. naqshadan heerkeedu aadka u sareeyo ayaa sahashay in shirkaddu horumar ka gaarto suuqa dharka iyadoo leh in ka badan 500 oo xarumood dakhligeeduna dhan yahay $3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana lagu qiimeeyaa brandiga kan $4.1 bilyan. Cartier waxa uu qiimaheedu dhan yahay $6.3 bilyan kaas oo ka dhigan 7 brandi adduunka ugu qaalisan waxayna caan ku tahay fashion aad u qiimo badan. waxaana lagu dhagax dhigay Paris 1845 waxaana dhagax dhigay Louis Francois Cartier sidaad magaca ka wada aragtaan waxayna keentay inay soo jiitaan indhaha qarnigii 20aad iyagoo si tartar leh ula wareegaya suuqa dahabka. Cartier waxa uu saddexdiisii wiil u kala qaybiyay magaalooyinka London, Paris iyo New York isagoo ka sameynaya xarumo u khaas ah. waxayna ahayd 1904 inay keento shirkaddu saacado aad qaali ah oo loogu talagalay raggu inay gacanta ku xirtaan. xilliyadii hore dumarka ayaa saacadaha gacanta lagu xirto isticmaali jiray ragguna waxay isticmaali jireen saacado jeebka lagu isticmaalo. fikradaas oo ka timaaday cabasho ay soo gudbiyeen qolyaha duulitaanka oo ah inaysan saacadaha had iyo jeer la soo bixi karin waxayna sababtay fikradaasu in brandiga kan qaaliga ah ee gacmaha ragga loogu xiro in ay dhalato.
Chanel waxaa aasaasay barnaamijkan lamaanaha Chanel sanadii 1912. Haweeneydii Chanel waxay ku bilowday naqshadeeda koofiyadaha dumarka ee kala duwan, waxaana koofiyadaha Chanel kor u socay iyadoo naqshadeedu aad u ahayd mid gooni u ah shirkaddan. 1920 Chanel waxay bedeshay wejiga ganacsiga iyadoo soo kordhisay barfuunka la yiraahdo Chanel-ka shanaad. Barfuunkaas oo noqday brandiyadii aan la ilaawi karin ee shirkaddan, waxaana inta badan xayeysiiya aktarada caanka ah iyo fashion modelada adduunka ugu caansan. Kambaniga kan waxa uu leeyahay dakhli 11 bilyan, waxaana lagu qiimeeyaa 7 bilyan oo dollar. Inkastoo shirkaddan aysan Chanel gacanteeda ku jirin qarni kadib, haddana fikradeedu weli waa ay nooshahay. Rolex markaad maqasho waxaa kugu soo dhacaya wadanka Switzerland. Haddaba waxaad ogaataa in xididadeedu ahaayeen wadanka England, waxaana aasaasay walaalaha Jermaniga ahaa ee Hans Wilsdorf iyo Alfred Davis. Markay xididada u aaseen brandiga loo soo gaabiyey W&D 1905, saacadahooduna waxay ahaayeen inta badan kuwo gacan ku samaysa, iyagoo loogada W&G ka dhex muuqanayso dhalada saacadaha kanuna maanta waa naadir. Sanado kadib waxay u hayaameen Geneva xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, iyagoo ka baxsanaya canshuurtii siyaadada ahayd ee Ingiriisku soo rogay si dagaalka lagu galo, halkaas oo ay Rolex xididada u aaseen. Waxay Geneva ku sameeyeen saacadii ugu horeysay oo dowladda Geneva guddoonsiiso saacadihii ugu horeeyay ee tayada nooceeda ah laga hirgeliyo wadankaas. Waxay kaloo soo kordhiyeen saacadihii ugu horeeyay ee aysan biyuhu gelin, iyagoo kor uga sii socday inay soo kordhiyaan saacadaha ugu qaalisan uguna tayada fiican dunida tan aan maanta ku noolnahay. waxay shirkaddan dakhligeedu dhan yahay 7.9 bilyan, iyagoo leh 6,000 oo shaqaale. Prada Mario iyo Marino Prada ayaa aasaasay dukaan la dhaho Prada kuna yaala magaalada Milan 1913. Dukaanku waxa uu aad ugu dheereeyay agabka samaynta leatherka, gaar ahaan boorsooyinka, dharka ama kuwa gacanta lagu qaato. Ismaan lahayn labada tan walaalood, magaca shirkadeena ayaa sidaas u weynaanaysa. Mario Prada waxa uu aaminsanaa in dumarka qoyskiisu uusan ganacsiga wax lug ah ku yeelan karin, hase yeeshee waa adduune. Gabadhiisii ayaa shirkadda la wareegtay marka uu geeriyooday aabahe, halka wiilka uu dhalay Mario uusan ku qanacsanayn maamulidda shirkaddan. Gabadhii Mario ayaa gaarsiisay shirkaddan inay noqoto shirkadda labaad ee ugu sarreysa wadanka Talyaaniga, kana mid noqoto shirkadaha ugu sarreeya adduunka, waxayna dhan tahay qiimo dhan 11.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo dhammaan agabka fashionka mid walba samaysa min kabo ilaa dharka sare. Gucci asaasaha shirkadda Gucci waxa uu ahaa wiilka aabe ka shaqeeya shirkadda hargaha, qoyskiisuna waxay ahaayeen kuwo nolol hoose ku nool. Gucci aabihiis tixgelin ayuu u hayay, hase yeeshee waxa uu go'aansaday inuu noloshiisa wax ka bedelo. Waxa uu safray Yurub dhexdeeda isagoo shaqo raadis ah, waxa uuna ku biiray galaasyo habeenkii ah, halkaas oo ku baranayay casharo la xiriira fashionka. Inkastoo ay muddo qaadatay, haddana waxa uu kaga faa'iidaystay xirfadii uu aabihiis baray inuu soo bandhigo naqshado aad u qurux badan una tayo fiican, una soo bandhigo bulshada qaniga ah. Halkaasna wuxuu uga xidhiidha aasaasay kambaniga kan maanta dhan 12 bilyan ee dollarka Mareykanka ah, waxaana sii dhaxlay ubadkiisa. Iyadoo la dhaho Gucci waxay xiriir la lahayd maafiyada xilligaas oo khasab noqotay inay la shaqaystaan, haddana lama ankiri karo horumarka ay gaadhay shirkadda tan iyo meesha ay maanta joogto. Terry Hermes waxa uu aasaasay shirkaddan 1837, kahor intaysan imaan garbasaarada iyo boorsooyinkan casriga ah. Hermes waxa uu guryaha boqortooyada u samayn jiray Hermeska. Wiilka uu awowga u ahaa ee Emily Hermes ayaa shirkaddan kor u sii kiciyay isagoo kaashanaya labadiisa saaxiib, waxayna ka bilaabeen inay gawaarida u sameeyaan meel alaabta lagu gurto, halkaas oo ay kaga sii dallaceen inay soo kordhiyaan qaybta alwaaxyada iyo suumamka. Laakiin Jean Louis oo ah ubadkii Hermes ayaa u bedelay shirkaddan shirkad caalami ah, taas oo soo saarta dharka iyo fashionka aadka u tayada sareeya, waxayna qiimaheedu dhan yahay 19.2 bilyan, kaas oo ka dhigaya brandiga labaad ee adduunka ugu qaalisan. Waxa uuna ku sii fidayaa suuqyada cusub ee China, taas oo ka dhigan in sanadada soo socda uu noqon karo brandiyada adduunka ugu horeeya. Lucy Fern waxaa la dhihi karaa waa brandiga adduunka ugu qadiimsan, lagana soo bilaabo maamulkii French ilaa jilayaasha caanka ah ee maanta. Wuxuu brandigan ku bilowday gacanta Louis Vuitton 1854, waxa uuna durbadiiba u dallacay inuu noqdo brandiyada adduunka ugu waaweyn, iyagoo ka howlgala in ka badan 50 wadan, lehna in ka badan 460 xarumood, kuna
kuna leh daafaha dunida. boorsooyinkooda waxaa si joogto ah loo siiyaa kumanaan kun oo dollar, waxaana dhan yahay qiimaha kambaniga kanu 28 bilyan. CEO-ga shirkaddan oo la yiraahdo Bernardo Arnold waxa uu dhawaan ka hanti sareeyay Bill Gates, laakiin sida Bill Gates maahan nin deeq ama sadaqo bixin badan. waxaana lagu eedeeyaa inuu gubo agabka aan la gadan si uu u sababo baahi suuqeed joogto ah, waxaana madax ka yahay brandiyada adduunka ugu qiimaha badan. intaas ayuu nagaga eegyahay barnaamijkeenii maanta. fadlan kusoo biir channelkeena Koryaalkana mid noqo bahda dhanka kore ee nolosha. mahadsanidin.